Sultan Abshir Mohamed Duali oo ka mid ah salaadiinta gobolada galbeedka Somaliland ayaa waxa uu maanta gaaray oo si diiran loogu soo dhaweeyay qaar ka mid ah deegaanada xeebaha gobolka Awdal ee ka tirsan degmooyinka Alxayd iyo Lughaya. Haddaba waftigan oo uu hogaaminayay suldaanku ayaa waxaan u kala hadhin oo iyagu si maamuus leh ugu soo dhaweeyay deegaanadaasi. duqeyda waxgaradka dhalinyarada iyo guud ahaanba haweenweynaha ku dhaqan deegaanadaasi kala duwan. waxana maanta suldaanka lagu soo dhaweeyay oo uu isku maray deegaanada gargaara bari riiga kalowle waxana halkaasi uu kala hadlay bulshada isaga oo dardaaran iyo ducaba isugu daray ugana mahad celiyay soo dhaweyntiisa. waxyowga dawladda hadiya jeeran ka codsan jiray maaragta waxa ka mid ahaa inay degmo u qalanta gargaar oo degmo la siiyo. maanta waad ismuujiseen degmadii hore Alxayd maalintii labada degmaba waan hordhigay Alxayd iyo gargaara naanays way ku tahay dawladda Somaliland inaanay degmo labadaba ka dhigin. waxa la yiri sultaan maanta mid baan helay hadaba hadii ilaahay ka dhigana waxa uu tan maanta joogtana gargaara inay degmo tahay la isku maayaa hadii ilaahay ka dhigo waad muujiseen qawidiinaad muujiseen inaad degmiyo gobolba u qalantaan baad muujiseen waa ku dadaali doonaa haddaan dawladda isir qiraafno waxaan ku dayi doonaa haddii ilaahay ka dhigo inaan soo celino maaragtaayeen wada shaqayn inaan soo celino xuquuq waxaan u leenahay inaan helo. aad iyo aad baan inigu mahadnaqayaa dawladdana dee waxa weeyaan kolle waa la isqabsaa kolle waa la wada shaqeeyaa waa wada shaqaynaynaa hadda kadib waa wada shaqaynaynaa. waxaan joogno maanta halkan magaalada Kalawley ee ka tirsan degmada Lughaya waxaan si maamuus iyo mug loo soo dhaweynaynaa suldaanka iyo inta la socotaba. waxaan leenahay suldaan ku soo dhawow wadankaaga iyo carradaada iyo ciidada mar labaad. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad iyo aad baan inigu mahadnaqayaa aad iyo aad baan inigu ducaynayaa. waa maalin khayr leh roob baan la kulannay aad iyo aad baan inigu ducaynayaa oo inigu mahadnaqayaa sidaad igu soo baxdeen kullay qiiradan badan ee suldaanku uu xidhan yahay inay tahay baan u malaynayaa aad iyo aad baan inigu ducaynayaa. waxaan haynaa Allah inoo barakeeyo dad iyo dunyaba ilaahay inoo barakeeyo madar khayr qaba ilaahay ina siiyo. ugu dambeyn suldaanka ayaa waxa uu soo gaaray oo si mug iyo miisaan leh loogu soo dhaweeyay degmada Lughaya waxana halkaasi ka hadlay soo dhaweyntiisa kadib oqaal waxgarad haween iyo mas'uuliyiin ka tirsan ciidamada amniga ee degmada Lughaya waxana iyagu hadalka iska daba qaatay hadaladoodii kamid ahaa. سلطان واحد كسر دواتا شعبي قاضي مجال مدحضة شعبي قاضي مجال شعبي قاضي الرلوية سلطان كواهين وصفي عن كسر دوينية كسر دوينية ودناك سلطان كواها آدي يا آد يري وين رقي الدمر وحنكم محنقينا هذا وفتقين سلطان كواصعدنا حي لما انتوا أمي محنقينا خاصة مجال Lughaya joogna maanta oo magaalo madaxdii degmadeena amba deegaanka suldaanku ka soo jeeday magaalo madaxdeedii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa banka oo muddooyinka naga maqnaa hadduu hawl ku maqnaa iyo hadduu meel dheer ku maqnaaba maanta farxad weyn bay noo tahay laba noo farxada barwaaqo ilaahay keenay suldaankeedii naga raagay ay ugu garuureen ilaahay ma Allah ma taynala jooga alxamdulillah rabbil caalamiin maanta waxaan soo dhaweynaa suldaanki Lughaya oo muddo ugu maqnaa galbeedka Qurush waxaan Qurush muddo ku baxay gobolada saaxil iyo marootiga Qurush ugu maqnaa oo ka soo laabtay suldan soo dhawow ku soo dhawow Lughaya qofkaagii aad ku soo dhaweynaa maanta si sharaf leh oo wanaagsan u soo dhaweynayna suldaanqayadii maantana noo yimiday ayaa waxaan si fiican oo wanaagsan u soo dhaweynay. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. aad iyo aad baan inigu mahadnaqayaa waxa weeyaa uluunkii deegaankeenna
oo lughaya ah ayaan joognaa. waxaan aad ugu mahadnaqayaa odayada, dhallinyarta, ciidamada oo hawl badan qabta oon arkayo, haweenka dhammaan waan inii mahadnaqayaa, waan inii ducaynayaa, horeba waan iniigu duceeyey. waxa weeyaa wax yar hadday jireen waxa weeyaa waa la isqabsadaa, waxba shaqa dawladda iyo madaxda shaqa ka dhaxaysa, waa la isqabsadaa. si fiican bay ii hayeen, si fiican bay ii soo daayeen, waa imigana waan isdhegaysan doonaa. isku soo wada duubo Suldaan Abshir Maxamed Ducaali ayaa waxa uu muddooyinkii dambe ku xidhnaa xarunta xabsiga Mandheera ee Somaliland, waxaana markii laga soo daayay xabsigaasi guud ahaanba si istaba jooga suldaanka loogu soo dhaweynayay meelo badan oo ka mid ah deegaanada gobolka Awdal. waa Mustafa Xuseen Cabdi Mustafa Garbo, muqbahiyaha caalamiga ee Sahan TV, magaalada Lughaya.